fidno nin wax ku helaayo mala ninka leh fidna xil ku helaysaa fidna xilna laguma helo xoolana laguma helo aakharana laguma helo adduunyana laguma helo adduunyo beel iyo aakhira beel baa laga qaadaa wax laga qaada male wiil la'aan iyo walaal la'aana laga qaadaa wax laga qaada male wixii ilaahay kuu soo qoray adoonan walaalkaa dilin oo walaashaa qaxinin oon dhibaato suubinin yuu ilaahay ku siinaa wixii samaan lagu waayana xumaan laguma helo war ninka wax rabow wanaag ku raadi wanaagay ku fiicanta baashee war ninka wax rabow wax reebo oo iimaanka allah kugu sugo dadka walaalaha ah oo fidnada ah ku wadid fidnada ka dhaaf waxaa soo socoto bil barakaysan dadka reer koonfur galbeed gaar ahaan dadka magaalada baydhabo jooga oo tirada intaas la eg oo amniga ku nool waxaa jira saraakiil iyo ciidan qaran oo ciidamada qalabka sida oo dhan oo isku jira oo habeen iyo maalin u taagan amnigooda war kan fidnada wado oo ama ciidanka ka soo baxay ama meel kale laga soo safriyey oo wax kale oo waxa aad aaminsantihiin mahana wax kale aaminsan oo guryihiina ijaaranaya oo la intaan ku dagaalamayna carruurtiina dhexdeeda iska diida waraa gurigayga iga baxda aniga dagaal ma ribin nabadaan rabaaye ciidamada amniga u soo sheega waa kii tuugaha intuu soo galay gurigaanuu rabaa inuu ijaartay waa ka diiday guri kaluu ijaartay waa ka diiday shacabka intaasaa laga rabaa amniga qaybtooda inay ka qaataan dadkan mas-uuliyiinta kale oo dowladda iyo waxgaradka iyo aqoon-yahaanka iyo odayaasha dhaqankana waxaa laga rabaa inay mas-uuliyaddooda qaybtooda ka qaataan ummadda nabadda kala shaqeeyaan horumarka kala shaqeeyaan wanaagga kala shaqeeyaan qof allaaliya qofkii muwaadin ah oo reer koonfur galbeeda oo wanaag raba waa rabnaa waa soo dhawaynaynaa qof la diidan yahay ma jirto qof la necab yahay ma jirto qof qaladuu galay ha la sii fogeeye la leeyahay ma jirto cafullaahi camaa salaf nin walbaba wuxuu samaystay isaga ilaahayiisa laakiin annaga ilaahay dartiisa dadkaana mas-uuliyad naga saaran tahay qof kasta oo reer koonfur galbeeda cafi iyo masaamuxuu naga yahay walaalkaa naga waaye ha noo soo dhowaado ha nala joogo reer koonfur galbeedaan nahay koonfur galbeed aniga malihii mas-uuliyaddaana ilaahay nasiibkayga ka dhigay maalintuu ilaahay ii qoraan ka tagaayaa si nabadaana uga tagaaya hadduu ilaahay ii qoray dadkan inaan u adeego oon usii joogana waa sii joogayaa waa sii adeegayaa wanaaggii aan qabtay baan sii badinayaa wax kale dan kale oon ka leeyahay ma lahan marka walaalayaal dadka reer koonfur galbeed oo sixun waxu sheega ah waxaa la yidhahaa sixun waxu sheeg sixir ka daran oo fidno sheega ah oo mikrofoonada haysta oo beenta sheegaayo oo meelahaas ka soo hadlaayo oo suurka gadinaayo oo waxaan jirin sheegaayo waxaa la yidhaahaa nimaanan kuu furaynin yuusan kuu rarayn waxba nooma haayaan waxba nooma taraayaan waxaan nagu dhacay maanta waxba kama galaan hal xaboo baaristamool lama soo dhiibaayan intaasay ka rabaan mikrofoonka iyo istaageenay ka rabaan baaristamool xanu baabiye qofkoo hala sii hataa ma dhahayaan fidnadaasay ka rabaan kuwaas ayaga ah ilaahay baa naga qabanaya laakiinse annagaa la rabaa inaan iska qabanno ayagana ilaahay ha soo hanuuniyo dadkooda iyo deegaankoodana ha u tureen iimaankoodana ha sugteen intaasaan rabay inaan isku buraarajinno inaan amniga ka wada shaqayno inaan nabadda ka wada shaqayno inaan walaaltinimada ka wada shaqayno inaan midnimada iyo dowladnimada ka wada shaqayno inaan garab istaagno ciidamada qalabka sido iyo madaxdooda habeen iyo maalin u taagan u dhafraayo u dhimanaayo siday dadkaan nabad ugu noolaan lahaayeen inaan gacan ku siino oon la shaqayno wixii fidno wadana aan iska qabanno intaas kadib waxaa lagu jiray bishii shacbaanna waa gebagabo ramalaan baa soo dhow isbuuc jimcihii ka horreeyey waxaan ka hadlaynay sidii la isu kaalmayn lahaa arrimahan abaaraha iyo daruuftan adagoo jirto dadka wixii la istari kara la isu tari lahaa iyo ahayd waxaan ka hadlaynay jimcihii ka horreeyey iyo sidii la isu kaalmayn lahaa la isu garab istaagi lahaa ayadoo daruuftaas adag ay jirto oon gurmad ku maqannahay oo dhaqaale aruurin lagu jiro oo biyo dhaamin lagu jiro oo raashingad lagu jiro oo qaylo dhaan lagu jiraa fidnadan nagula soo dhex tuuro hawshii ayada ahayd oo gurmadka ahayd
oo dhaqaale aruurinta ahayd oo istaakulaynta ahayd oo wax istarka lahayd waa sii laba jibaaraynaa dadka walaalaha ah oo aan waxaysanin gurmadkii sidii baan u wadaynaa waa isu gurmanaynaa waan istaakulaynayna waxa soo galayso hadduu ilaahay yiraahdo bishii ramadaan nabadii caafimaad Allah noo gaarsiiyo bil khayra oo bil cibaada ah waaye inaan isu naxariisano wax istarno wanaag isfarno maxay ahayd nin walba ninka kale wuxuu dhaamo uu taro khayr aan ka wada shaqeyno